barasaabka cusub ee gobolka Awdal barasaab Hooley aniga oo ah xildhibaankiisina la soo taargad galeeyay leeyro uma codayn kartid ree Awdal anigana damiirkaygu wisiin waay aniguna kulmiye hore anigu cibaadaystay reer Awdalow ninka Soomaaliland ka ooyaysa ka ooyaya ayaa la iniga soo dhigay barasaab waxa anigoo ah xildhibaan Maxamed Xuseen Meedhane maanta hotelka Baraar leeygu geystay afduub taasoo ay ugu geystay barasaabka cusub ee gobolka Awdal barasaab Hooley waxa arinta iyo dagaalka Awsaaka Boorma intuu ka soo duulay isagoo oo 10 oday wata gurigii aan galayay leeyga kiciyay aan hotelka Baraar wada tagnay ilaa 12 ku wada hadlaynay isagoona muddada uu jooga bilba ayna gaadhin isagoo oo dagaal kaga jira oo fariin siyaasadeed wada in ayna ree Awdal shirgudoonka tagin oo ina gudoomiye ka noqon aniga oo ah xildhibaankiisina la soo taargad galeeyay leeyro uma codayn kartid ree Awdal anigana damiirkaygu wisiin waay farba farta ku xigta lagu kaba ilaadanka annagoo fursad siyaasadeed iyo damacayaga siyaasadeed 30 sano markii koowaad shirgudoon gudoomiye aan doonayna baarlamaan uu yahay inuu Ilaahay nagu guuleeyay inaan rajaynayo reer Awdalow de maanta uma guulwadihii ugu weynaa oo Muuse u ooyaya Nabi Maxamed iyo kitaabka Allah loo ooyay ninka Soomaaliland ka ooyaysa ka ooyaya ayaa la iniga soo dhigay barasaab inuuna dhex hayna wax cadaynaysa inuu leeyahay ninka looma codan karo ree Awdal muxuu ni tarayaa marka bari wuxuu rabaa inuu wax idin sheego waxaan leenahay hadan xildhibaanadii aad doorateen nahay annaga oo xasaanad leh ayaa hoteelada sida dhexdooda maanta iyadoo ciidan la watay odayaal mana shaqaynayso war intay goor tahay barasaab niima noqon kare dhexnay niima noqon karo jufadiisa u noqdee ka sii jeestan Ilaahay waxaad ka dhageysataan ayeen jirin haddii bari ma doorasho madaxtooyo timaado muxuu inagu sameyn ninka shirgudoon cid kale amaanta u ooyaya Ilaahay baan inagu dhaarshay ree Awdalow waxa la inii soo dirayaa guulwadayaasha waalan ee waalidu madax martay warinta goor tahay ka tashada horta waxayna fil caariga xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa cadeynaya Soomaaliland waa xor waa dimuqraadiyad fikirkiisa qofka waa u xor codkiisa waa u xor dadnimadiisa waa u xor diintiisa waa u xor waxaan aad ugu xumahay oo isagana la taargadeeyay xildhibaan Jamaal oo maartan la weeraray oo arkaysaan fil caaliga xisbiga kulmiye aniguna kulmiye hore anigu cibaadaystay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh